dareensannaho marka qofka bini'aadanka dhibaato loo geysto dariiqan waa dariiqii ugu dambeeyay talaabadii ugu dambeeyay uu qaadi lahaa walaalayaal waxa ka warqabtaan maalimahan dambe sidaan horeba uga dhawaajinay inay jabhado shacabkeennii ay samaysmeen arrintaasoo kalifi karta amni darro weyn oo aanaynu ka soo waaqsan sidaa awgeed waxaanu jeclaysanay maanta inaanu shacbigayaga la hadalno uguna baaqno baaq nabadeed 3 qodob baan u kala qaadi marka koobaad inamada jabhadda samaystay ee bannaanka u baxay walaalayaal waxaan idinku wacyigelinayaa tabashaada aa qabtaan aynu si nabada ku doonno si xala aynu ku raadinno qorigu maanta ina anfici maayo waxaynu u baahannahay meel kasto inala gelaysaba annagaa ka daba shaqaynayna waxaan idinka codsanaynaa inaad tabashadaa aa qabtaan shacabkii reer Somaliland ee muwaadiniinta habaatiin xaq baa u leediin wax idin diidayaa ma jiro inaad wax tabataan wala sida wanaagsan aynu ku raadinno xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland waxaanu iyagana baaq ugu diraynaa mudane madaxweyne iyo saraakiisha kale ee ka agdhow la taliya baaq iyagana hadduu idin soo gaadho waxaanu jecelnahay in aynu arrimaheena ku dhamaysano qaab amni qaab wada shaqayneed qaab isfahan qaab isu tashi qaab aynu talada wada yeelanayno oo miiska wada fadhiisanayno oo aynu wax wanaagsan ka wada tashanayno waxaan jeclaan lahayn labada dhinac midkoodna inaanay tallaabo qaadin inta aanu ka midho gaarayno isu tanaasulka isfahansiinta wax wada yeelashada iyo inaynu miis wada fadhiisanno oo inagoo wada faraxsan ka bacdi ka soo wada baxno guud ahaan shacbiga reer Somaliland walaalayaal maanta waxaanu jeclaan lahayn inay nabadda ka wada qayb qaadanno inay nabadda wada dhisanno nabadgelyo darradu waxba inoo keeni mayso waan dareensannaho marka qofka bini'aadanka dhibaato loo geysto dariiqan waa dariiqii ugu dambeeyay talaabadii ugu dambeeyay uu qaadi lahaa maanta se waxaan isleeyahay bal aydin haddana sida wanaagsan wax ku daydaan oo xagga wanaagsan wax ka martaan waxaan soo jeedinaynaa dhammaan shacbiga reer Somaliland guud ahaan aynu nabadda ka wada shaqayno nabadeena waxaan iyagana guud ahaan ku soo ururinaa hadalkayga walaal nabadda aynu ilaashano aynu si wanaagsan wax u raadinno tabashadiinana waa tabasho aan isleeyahay in waa la daweyn karayaa haddaynu miiska wada hadalka fadhiisano haddii Alle